dadka dabaqa saarsaaran u jeedaan waa Abiy Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo sukuuradkoodii kuwan hoos ka qaylinaya waa shacabkii Soomaaliyeed xeebta liido u soo baashaal tagay la sheegay Abiy Ahmed markuu aeroboortka magaalada Muqdisho aad raacday sida uga soo dagay inuu madaxweynaha ka codsaday badda Soomaaliya in la daawadsiiyo maadaama uu guurdaraynayo tan waa soo laaban doona dadkan hoosoo idin muuqda oo saakay u soo kala xeebtooda inay ku baashaalaan wiil kamida ayaa askartii ammaanka sugaysay iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Abiy Ahmed bay dabaqa ka daawanayaan ayuu sharx badan ku dhuftay waxa mucjiso noqotay wiilkii meesha lagu toogtay dhiigii ka baxay badii Soomaaliya inuu saa u buuxiyay Abiy Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud markay badda saa u milixsadaan dhiig baa sida u xiraacanaya wiilka dhalinyarada maanta meesha lagu toogtay waxaan hubaa eragii ahay dalkayga dhiigaygaan huraya ama nafteedaan huraya oo caadi ah inay tahay sababtoo ah Abiy Ahmed baanihiisa wuxuu ku arkay badii uu qul dareynayay oo dhiig ka sokayo oo arkay waxa dameer xumaa kuwa ammaanka sugayaan oo la hadlaya adigoo wiil Soomaaliyeed ah nin badaada doonayo xoog inuu qaato adigoo dhahaya asagan difaacaya walaal kale oo Soomaaliyeed oo adiga biri garabkaada ka dagaalami lahaa oo kaas badaas doo soo hajuumo kula dagaal gali lahay ina ninka daraadiisa aan naftiisa u dhaafido aad iyo aad baan uga xumahay Abiy Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud xeebtii bay tageen maanta waa ku soo raaxaysteen wiil Soomaaliyeedna halkaaba ku dhintay anigu gadaal u raaci maayo Xasan Sheekh Maxamuud xilliga masaajidka ka dhex dhawaaqayay iyo wuxuu sheegayay iyo dad badan muuqaal ka diyaariyay waxa macna taas ii sameeyay laakiin askartii ammaanka sugaysay hal xaboonta jarraca ku kacdo oo ciishoodo Abiy Ahmed baas ku arqaama ma laga waayay hal xaboonta meel shaama shuutar la kara Abiy Ahmed madaxa ka toogto ma la waayay askartii imaaraatiska ahayd wiilkii isku qarxinayay askariga ahay ee markii dambana dawladda federaalka ay u saartay inuu ninkaas shahaadiinta kamid ahay wallahi xog isla waagi aan ka helay waxa ii sheegaysay wiilkaas inuu ka xumaaday askartaas waxay meesha ku sameynayso sida ay ula dhaqmayso maadaama staafkooda uu kamid ahay kibir carabti sanka ka hadlaysa bal carab dhulkaada dad kugu yimaado oo isu kibriya ka waran dhalinyarada ammaanka sugaysay hal nin xanaaqa baas ku xarqaama waa laga waayay waxa kale daawaday mid askari iyo calanka Itoobiya inta loo dhiibay aan ogahay qalbiga inuu ka diidan yahay qalbigiisana qashuuc ka muuqdo sawirkiisa meesha idin soo saaraya ninka markaad wajigiisa fiirisid wallahi muruga ka muuqata kuma faraxsana calanka inuu haayo halka midka garabkiisa taagan oo calankii buluuga ahay Soomaaliya sida uu haayo waxaan waa boqolkiiba boqol wiilka calanka Itoobiya loo dhiibay inuu wiil wadani yahay sidoo calanka u haysto sidoo uu qur dareynayo sidoo uu murugsan yahay sidoo uu uga xun yahay wajigiisa marka la eego shucuur baa ka muuqata tolo ma tuurtaa waxa isleeyahay waxaan anu maanta maleynayay dadka magaalada Muqdisho joogo dhan inay mudaharaadayaan oo Abiy Ahmed ay ku mudaharaadayaan laakiin waa dhici weysay magaalada Muqdisho marka saa u fiiriyo dadka joogo dhan dawladdu dhiigii bay sida uga siibtay qaar ay qabiil uga siibtay qaar ay xaniyaha ka siibtay midba nooca looga siibay dadka dhanba maxaa iga galaya lagu leeyahay Abiy Ahmed doo imaanayo haduu jin imaanayo haduu bad qaadanayo haduu dhul qaadanayo maxaa iga galay bay taagan yihiin anigu inaan noolaadaan u baahanahay